محاضرة أو كصابصا كتاب كاير إنه هيستنى حسن المسلم كلا يراد شرح عيسى يا أسماء الله الحسنى إنه كجفا إذا استنى معلومها إنه هيستنى تدكو أديها يخريان ذكري جنا وحلاقي يا وين بدنا كميدا إن أنا معنيه سفهمين ها قف كأما يسكن متعلم كأما حديث آخرستي هي كتب الأذكار تو فهمية لكن حكمة إنه آخرين أو حويدات بدن والدعاء دي أما ذكري آخرية والمعنيه سين الجرانين شيء ونفسي سبب حكود الدماء مركز معنيه سجرانيس أيو كود الدماء تسوى مدوية مد الله بعد ما يشكو ترتاح وحوي قفكم مركز الدعاء سنة دعوين كان وارد كأيه أما قرآن كصار رأي أما نبي كصار رأي عليه الصلاة والسلام فائدة قارة يسر قارة حنبارسين والدعاء دي هذا وهذا سكاخر ستة قارة كهيد أما يريدي كو قارة كهوي كدوانت هذا مركو قفك معنيه قرني دعاء والبمشي دي أيو قادني أيكوها باني تكلات ترتاح وهي حتى أريد السيد الله قلنا واقع الدعاء ده هي ذكرك يدنا هتوقف كل لحن كسمايو أما أو خلطه أقبل كذي وحبه ودميس والنبي عليه الصلاة والسلام بالنبي الذي أرسلت يا برسولك الذي أرسلت لبلا إري أيوه هاي سويدارين أصحابي وحن كوري بالنبي الذي أرسلت سداد دعاء دولي ولا بدن سدي يسوقها كسين هاو قادن بالرسولك الذي أرسلت مركا وسيدي أنا يرون أدب النبي عليه الصلاة والسلام مركا دعاء لحن وكتيره أقبل كذا حمارة إذا مركا أنا وقف سيدي ونكسرنا أقول واقع سوى نكسرنا معناه هذا وفهمه بي مهم وطاي تكلين الشيء اللي هي وحوية شيخ بس دا وكم جعاوي قفك مسلم كا وحسن جيسيب حسن واقع عده مركز هذا يشار عدو كبقيس قلعت بعد قشاه مال نجاه دفاع كجشة وهي قلعت وعدو قاعد كجش مركز باب كان إمك أما ذكر جاني إلهي إلا حصي سبحانه وتعالى وحي وكمدي هاي ما لها أي مكجلين شيطانك الله ينقص اللي ذي شيطانك يا سحرك يا إيشي يا حاسدك أنت أردم بوح لجا مجان قلعة وقلعة لجا قلعة يا وياي ذكر جاني إلهي سبحانه وتعالى هي الأدعية المأثورة دعوين كالنبي قال لجا سوق بيي عليه الصلاة والسلام marka faa'iidooyinku dhikrigu leeyahay kuwaas kamidii faa'iidooyinka dhikriga waxa kamida kala qofka sharaxa haya ila ibn qayyim wax aad u fara badan buu ka sheegayaa ila astobeeye ku dhawe waqtigeenu laakiin kula xajaclaabayna matnigu been ku soo dhawaanaynaa faa'iidooyinkiisi waxa kamida inta aad ilaahay xusayso waad ku dhawday waaye cidda hadalkeeda hayso waad ka agdhow faa'iidooyinkiisa waxa kamida waxay ka turjumaysaa qofkaas inuu ilaahay xusuusan yahay markastuu ilaahay daakiru yahay oo xusaya subxaanahu wa tacaala faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah dikriga oo aynu badino qofkan daakirka ahi ee ilaahay xusaya subxaanahu wa tacaala waxa uu dareemayaa wehel waxa la yidhaha waa musta'nis ilaahay buu heshanaya laakiin qofku hadduu dikriga iska daayo waa mustawxish وعبسانيا marka dadkii waxa arkaysaa inay iska wada cabsanayaan ay iska wada didsan yihiin maxaa didsanaantan ugu wacan waa dhikri la'aanta dadka in fara badan u baa iska yara sidaad u moodayso in xaragoonayo iska caadiya ayuu koonaya waa la yeeriyanaya waa la isoo eegay waa la isawiraya oo cabsanaya qof marka waxyaabaha ka reeba waxa kamid ah dhikrigu faa'iidooyin aad u fara badan buu leeyahay inaga tilmaanay deena culimadu qodobo aad u badan ka qoreen laakiin waxa kaaga filan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu isagu badaakirkii u weynaa ahaa wahabeeniya maalinba ilaahay uu xusayay subxaanahu wa tacaala iyadoo oo loo waxyoonayo qur'aankii uu ku soo degay dikrigu waxa uu ka mid yahay duruustaynu qaadanayno haddaad cashara dhegaysanayso waa inaad waqti gaara wardi leedahay qur'aankiiya ducadiiya salligii nebiga adkaartan faraha badana aynu akhriyayna si kale haddii loo dhigo
noloshiisa qofka muslimka ilaahay u jiheeyey meel laba gaab bannaan looma samayninba waxa aad arkaysaa waqtigeennii bilaa macno ku soconayo nolosha qofka muslimkii bilaa macnoba ma lahaba meel waliba way buuxdaa bal imika marka aad soo toosto ilaa marka aad seexanayso intaas waa wada dikri noloshaada wax kasta oo iska bedela sharcigu dikri buu sameeyey dikrigaasina sir buu xambaarsan yahay noloshan qofka daakirka ah waa nolol barakaysan qofka gaafilka ah in ilaahay xusaynna waa nolol bilaa baraka ah marka sidaasi bay ahaayeen culimadii hore waxay sameyn jireen waqti dadkay diinta u akhri jireen oo dacwaday fidinayaan waqtina waxay sameyn jireen kutubtay qori jireen waqti kale munaadaray sameyn jireenoo dood cilmiyeed bay isla eegi jireen culimada waqti kale waxa lagu leeyahay sheekh hebel waqtiyada iyo waqtiyada waxa uu lahaa dikriga ayuu akhri jiray واصحاب المذاهب والعلماء سلفنا الصالح marka waqtiga isaga waa waqtiga uu sheekh wardiga lahaay dikrigiisi gaarka ah akhri jiray marka noloshu saasay ku fiicantay ku tartiibsan tahay balse aynu u macaasano mowduucan aynu ka hadlayno waxa aynu ka warramaynaa nusuusta quraaniga iyo xadiis bale ee dikriga ka warramay dikriga maxaa la yiraahdaa la shayga horta waa in tilmaantiisi la bixiyaa dikrigu waxa weeye shay kasta oo adoonka laga abaalinayo qowlaha uu ku dhawaaqayo qowl kasta oo aad ajri ku helayso oo islaamku uu dhiriyo waa dikri tasbiixda xamdiga tawxiidka istighfaarta cilmiga dacwada nasiixada waxa la wixii wanaaga aad ku dhawaaqayso ee ajri ka helayso intuba waa wada dikri ilaahay baa wuxuu yiri fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun واذكروني حصى أذكركم أنا ونوارد الحسي الدورة واشكروا لي ولا تكفرون إما هاد نقوها قالوا بنا مركا وحي علماء الليين آيات كل كانوا يقنوه دي أمر إلهي نوين وكت جوابين مركا إنه إلهي حسينه سيدوك لما هاد نقي إلهي وي هداد إلهي حسي سود ذاكر تهي تشكر الله إلهي بضم هاد نقي سبحانه وتعالى آيات اللبادة اللي رجالين يسذكرك فضلك يسكوا الرميس إلهي بأوحل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ددك إلهي رمييو إلهي حص فربضا وسبحوه بكرة واصيلا وتسبح سدق قلين كهرية قلين كالطنبابا هبيني يمال المذول بوا قلين هرية قلين طنبا مركاسا إلهي إنا ينبضينا ذكرك أيونا فريا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما رجع إيا ضمرك إلهي إن بدن حصاه وحو إلهي ودياري أبا المرين وين إيا چن دم بداف إيا أبا المرين وين وچنا أيو إلهي ودياري رجع إيا ضمرك إلهي إن فرب بدن حصيه إيان إلهي إلا وسنين سبحانه وتعالى نسك أفراد نبي عليه الصلاة والسلام نقن كيسيبو إنه موجنا ياتا وحا مركا وهردada ka soo kaco wuxuu leeyahay man istayqada min nawmi wa ayqada imra'at dadii uu qofka intuu hurdada habeenkii ka kaco xaaskiisana baraarujiya labadooduba ay tukadaan laba ragcadood kutiba min adh-dhakirina allaha kathiran wadh-dhakirat waxa lagu qorayaa ragga iyo dumarka ilaahay in badan xusa kuwa amarka ilaahay u hoggaansamay dikriga in badan xusay kuwaas uu ilaahay ku qoraya subhanahu wa ta'ala wa habeenkii ninka iyo xaasku haday cibaadada u kacaan oo ay isu taagaan dikrigu adaabta uu yeelanayaaba ilaahay oo inoo sheegaya markaad ilaahay baryays ismiskiini codkana hoos u dhig arin ilaahay adigu isla ogtihiin noqdo arrinkaas واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إلهي بأوحى الله إلهي حس كارهانتا عد بها يسبقشين إلا إلهي يبقى كامدنا يسبقشيس تضرعا وخيفا هذه عبسنا يسنور دقيا إلهي حس سبحانه وتعالى ودون الجهر من القول حد كان كره وقات هقيل قيل ذاكر بان وذكر بان وضعوانا قيلنا يا
وان قراريا اسقبن ماي أداب تيلالي بقى إلهي الله سبحانه وتعالى قلن كوريا قلن كالضبو غافلين تاكمد نقول قفكو أما هو ذاكر أما هو غافل أما إلهي بحصيا أما هو كدع سيها حصوصتي إلهي سبحانه وتعالى مركا إلهي كدع إن الله سوق بصو مركا كغني مادنو آيات كا دليل هذا أبدا وحنوصل نقولنا حديث رسولك صلى الله عليه وسلم نبي وحول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه قفك إلهي سحصيا يقفك آن إلهي حسين تساله ذو وحو كلياي مثل الحي والميت قف انتي يقفنا ولا كلاي هذا لا بدا قف اسبربر دق قفنا ونولياي قفنا ودنتي قفك إلهي حسوسنا يقرون عرب كيس وكعل علينا ذكرك فايدوين كيس ذكرك waxa kamida in hadiya jeer carabka aad ku buuxisade carabku waa xubin nool tamarna wuu leeyahay hadaa dhikriga ku buuxin weydo de waxaad ku buuxinaysaa un shay shar ah hadii khayrkii uu ka maqnaado iska joogi maayo uu daldalmi oo nagnagtiisii uu wadaya marka shar un buu bilaabaya marka labada qof dhintay iyo qof nool oo kale ka kala dhigan yihiin qofka Ilaahay xuseeyo ka aan xuseeyo sidee uga dhigan waxa weeye de noloshu ma aha uu naftan jirka ku jirto laakiin naftii baa nolol u baahan nafta laftigeedu nolol bay u baahan nafta nolosheeduna waa dhikriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ruuxda inagu jirta waxa raashino ah oo shidaalo ah oo dawo ah wax shayga la yiraahdo dhikriga kaasa quut وقوت الروح روح ذا قوت كيدي وي marka hadii quudkii laga cuno qabateeyo ruuxdii way iska dhimanaysaa marka qofkii isagoo iska nool oo iska cado iska cuuran oo iska muruqiya waaweyn ayuu iska baqtiyahay saa quraanku ba uu ku tilmaamay inuu nabiguna sawiraya calayhi salaatu wasalaam digriga fadligiisu nabigu ka waramaya marka wuxuu tilmaamayaa waxyaabo fara badan oo khayr ah aynu sameeyno إنه ذاك بس يفضل بدني هيبة ذكره نبي واحد ألا أنبئكم بخير أعمالكم وارضي هم إذين شيء عمل كينا وحى خير بدن وأزكاها عند مليككم إلهي إن أكتي سنة بركة بدن أو نظيف بدن وأرفعها في درجاتكم درجوين كينا نكردين كو قاضي كره وعمل هذا سميسين درجوين كينا كرو قاضي كره وخير لكم من إنفاق الذهب والورق إذن كان خير بدن إن العق بحسان أو الذهب بحسان أو الصدقة بحسان بابو إذن كفد لبدنيا هاي وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم إذن كخير بدن إن عدو قال لكم لنتانو قارتا آكتشرتان يقولون قارتا إذن كقويان وجهاد للدقال قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى نبي مركا وحول عليه الصلاة والسلام كان دين شيغيا وحسك إلهي إلا حصي سبحانه وتعالى وحاص عمله أيا أبو كسي خير بدنيا وكفل بدنيا يقول الله رسول صلى الله عليه وسلم سادرات ديت بأمركي حج كلا قلت له صوم كلا قلت له جهاد كلا قلت له مر والبا ذكر قميد لقد تجي باه ونصوص الماما يفضل لقد ذكرك ذكرك فائدوين كي سبون نو شيغا يا نبي عليه الصلاه والسلام يفضلكيسا waxa kamida hadaad ilaahay xustaysna uu ku xusaya marka xuskeena waxaynu ku gaaraynaa inuu ilaahayna xuso xuska ilaahay baana ka qaalisan keena inuu ilaahay ku xusaaba ka weyn inaad adigu isaga xusto wala dhikrullahi akbar xuska ilaahay adoonkiisa uu xusayo ayaa ka weyn ka uu adoonku ba ilaahay xusayo نبي وحول عليه الصلاة والسلام ونصوص ولا السجان أمارتي حاجة علم التخريج مركز لا جودة السجان ويا يقول الله تعالى إلهي بوحى حديث القدس كله أنا عند ظن عبدي بي أنا وحن كأجنو هاي كل بأضان كي يوحي جملاي وأنا معه إن ذكرني وأنا معه إذا ذكرني أنا وحن كأجنو هاي مركو أضان كي يوحي حصي هداد إلهي حصي سواد كله ذي هداد إلهي إلا ودنا واد كفكت هداد إلهي كله واد الشيطان باكافر
haddaad ilaahay ka durugtana shaydaan baa kugu lifaaqan shaydaan ayaa qofkii raacay waxaa gaal hadlaya ee xumaanta wada ilaahay caaya ee rasuulka caaya dadkaa mufsidiinta aad arkayso shaydaan baa ka dhex hadlaya fain dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsi hadduu si gaara ii xuso isagoon cidba ii sheegin anigaa si gaara u xusaya baa ilaahay udhan naftaydan ku xusaya wain dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayrin minhu hadduu jamac dhexdii igu xuso waxaan ku soo qaadi doonaa addoonka oon ammaantiisa iyo ajrigiisa ku sheegi doonaa jamackiisa ka khayr badan oo ah malaa'igta dhexdiisa ilaahay addoonka uu ku ammaanaya wain taqaraba ilaya shibran taqarabtu ilayhi diraacan wain taqaraba ilaya diraacan taqarabtu ilayhi baacan mar kastuu addoonku ii soo dhowaado waan u soo dhowaanayaa baa ilahay ule dhowaanshaha ilaahay cilmiga iyo cibaadada iyo dikrigu ku badsanaya markuu soo dhowaadaba ilaahayna wuu soo dhowaanaya xadiidkaa markaa intaa maxalu shaahidkeenu soo qaadanay waxa weeye xuska ilaahaynu xusayna waxaynu ku helaynaa inuu isaguna ina xuso addoon iska miskiina oo marka halkaa isagoo jooga adduunyada ilaahay caalamka kore caalamulculuwi uu ku xusaya subxaanahu wa tacaala uu ilmeeyey asxaabigii nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam uu markaas u sheegay xuska ilaahay iyo inuu ilaahay faray inuu nebigu ku dul akhriyo asxaabigaa ma ilaahay unbaa ay xusay oo addoonkaygan yar ubay ibnu kacb iska miskiinka ah baa nebi maxamed oo adiga lagu amray inaad qur-aanka igu dul akhrido markaasuu fabaka ubay ibnu kacb waa ooya waa muraaqooday dikrigan ilaahay la xusaya subxaanahu wa tacaala waxa uu inoo buuxin karaa kaalin weyn shar badan buu inaga joojinayaa xisn waa xisnun xasiin yadkhuluhu lmu'min aw ilmuslim min ashaytaan qalcad adagoo shaydaanka uu ka gelayo weeye qofka muuminka ah cabdillaahi ibnu busri asxaabiga la yidhaahbaa wuxuu yidhi nin baa rasuulka la hadlay calayhi salaatu wasalaam markaa ninkaasi waxau yidhi ina sharaa'ica alislaami qad kahurat calaya yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow shuruucdii iyo axkaamtii diintu way badatay fa akhbirnii bishayin atashabbathu bihi waxaad iga warantaa shay oo anigu aan ku dhagow atacallaqu bihi bal waxaad ii sheegtaa anigu shay keliya oon ku dugleeyo dhag aan ku dhagow kaa ii sheeg qaala wuxuu uhi laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illaah waxaan kuu sheegayaa carabkaagu dikriga ilaahay yuu ka suulin carabkaaga waxaad bartaa dikriga marka aad sii dhimanaysana wuu iska akhriy markuu qofku waashana wuu iska akhriy marka xanuun ku dhaco uu miyir doorsoomana wuu iska akhriy dadka qaarkood oo miyir doorsooma oo qur-aan u wadaa jira qaar iyaguna xumaanta ku heesi jiro hadan hayn jiro heesay baa jira markii uu had iyo jeer dee isbeddel ku dhacay maskaxdiisu wixii ay duubaysa ama ku rikoord garaysnaa unbay soo dallacaysaa waqtiyada isbeddelkaasi u yimaado marka carabka uun baan ku leeyahay buu ihi dikriga ku celceli oo ka caajisa waa rasuululumma rasuulkii ummaddee khayr oo dhan loo tilmaamayey sidaasuu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam naska tobnaad waxa uu nebigu xusayaa calayhi salaatu wasalaam inaan la yaryaraysan karin dikriga xaraf baa lagugu xisaabinaya kelmad baa lagugu xisaabinaya jumla lagu xisaabinaya miisaankii markaa qiyaamaha uu buuxsamaya biidni illaahi tacaala innaguna waxaynu u baahan nahay maalinta qiyaamaha kefadda afka inagu soo kala qaaday wixii lagu buuxin lahaa la saari lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi man qara'a xarfan min kitaabi illaahi falahu bihi xasana qofku hadduu akhriyo xaraf kitaabka ilaahay ka mida waxaa loo qoraya hal xasano waalxasanatu bicashri amhaaliha halkii xasanana 10 jeer baa loo sii laabaya laa aquulu alif laam miim xarf walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarfun idin odhan maayo buhi ereygaa alif laamiima ku jira qur-aanka waa xaraf keliyeed odhan maayo xarafkani markaa kii xagga luqada ayaa loo jeedaa waa kelmaddu waxay ka kooban tahay xaraf walba gaar baa loo xisaabinaya alif laam miim haddaad akhriday
وذكرك هذا أخرده وآيات نقضي waxaad leedahay 30 ajri baad leedahay marka wax ka badan hadalkeeda badaa nabigu kaleey salaatu wasalaam wina baraarujinayaayo khayran u baahanahay buu inoo tilmaamaya marka wuxuu xusay dadku waxay u shaqo tagaan duunyo haday safrayaan duunyo u shaqo tagaan hadii ay marka magaalada dhexdeeda marayaan marka indheheena xagga aynu ku hayno ayuu ka soo yara jeedinaya barwaaqada iyo midhaha la guranayo meelo kale inay u badan yihiin buu xusaya markaas wuxuu isbarbar dhigayaa diinta iyo duunyada inuu ku buuxsanaysa inuu dooni lahayn bal hadda diin wanaagsanna sida inuu dooni lahayn buu nabigu nagu dhiiri gelinaya kaleey salaatu wasalaam xadiidka Uqba ibn Aamir bawrinaya wuxuu maalin maalmaha kamida uu rasuulku nagu soo baxay sallallahu alayhi wasallam annaga oo fadhina markaas waxa uu yiri kiinaba jecel ayyukum yuhibbu an yaqdu kulla yawmin ila budhan aw ila al-aqiq kiinaba jecel subax walba inuu ku kalo labada meelood ee xoolaha lagu dhaqo budhan iyo aqiq markuu halka tago yati minhu binaqatayn kawmawayn في غير إثم ولا قطيعة رحم isagoo kolku halka tago budxaan iyo aqiiq ka soo kaxaynaya laba neefo geela oo kurus waaweyn kuruska weyn wuxuu ka turjumayaa neefkan inuu yahay neef shilis waa laba neefo shilis baalka subax walba waxa tagaysaa halka laba neefo waaweyn baad soo kaxaynaysaa subaxa labaadna waa tagaysaa labaad soo kaxaynaysaa adiga oo aan dambina galin qaraabo goysnimana aan maaragtay ku galin adigoon geel qaad noqonba geel dad laga soo qaaday ma mid la soo dhacay ma laakiin waa geel xalaal ah war qofkeeba jecel maalin walba intuu kala halka ku kalo inuu laba neef oo shilis soo kaxeeyo isagoo oo xalaalna ay yihiin marka waxaan nidhi yaa rasuulallaahi nuhibbu dhalik taarinta waan wada jecelnay marka nabigu waxa uu afala yaqdu ahadukum ila almasjid faya'lam aw yaqra ayatayn min kitabillah khayrun lahu min naqatayn warbidkiin intu ku kala masaajidka inuu laba aayadood ka soo barto quraanka ayaa uga fiican labadan geela ee sheegaysaana ka fikiraysa wa thalathun khayrun lahu min thalath saddex geelihi waxa uga fiican saddex aayadood وأربع خير له من أربع أفرت آياتنا وحي وقف عين فرقين ومن أعدادهن من الإبل تراد قرانك واد برتاباك أقف عن تراد وقيلة قرانك عدد كيسواي مثل آياتيسو لحكون إياه لباب قولي لحية صدنا آياتات انت سو هلادنا تسوك حيثت انت آياتنا برتاك أقف عنه نبي عليه الصلاة والسلام مركا قرآنكنا ذكرك أوسر يوي إن القرآن صبرته تفسير كيسة معنيهيسة أخرنتيسة هاي كاقف عنده انت سوقيله هدي قيل كرافي علف وين كما ناف هدي قرآن كرافي لكن علف وين باكو ناف قيمته النبي ونسيه عليه الصلاة والسلام وتاوي waxaynu isugu baraarujinayna aynu isugu akhriyayna baabkan isaga dhikriga faa'iidooyinkan iyo fadligan uu ku sheegay nabigu daraadi iyo meelo badan iyo majaalis badan oo aynu fariisano marka uu dhikrigu ka maqan yahay inay foolxun yihiin qiiq iyo boor iyo urba ka karaya rasuulka ilaahay wuxuu sallallahu alayhi wasallam wa naska labiya tabnaad man qa'ada maq'ada qofka meel fariista mafrish buu fariistay majlis meelun buu guri buu fariistay meel qofka fariistay lam yadhkur illaha fihi ilaahayna kuma xus quraan mu akhrin wa'di ma akhrin nabiga kuma saliin tasbiih iyo xamdi lama imanin halkaas uu fadhiyo wax khayraba ma qabanin been wanaag lama iman markaas ilaahay ma xusin kaanat alayhi min allahi tira ilaahay xaqiisa qofka waxay ku noqonaysaa tira waa laga tirtiray barakadii Soomaad maqal uu tiraya uu masaxaya waxbaan waa khasaare way tiradu waa khasaare qofkaasi uu ku khasaaray
maqaaxi fadhiiso majlis reerkiinaa fadhiiso mid xisbi fadhiiso mid saaxiibadaa fadhiiso meel kastood fadhiisato oonad ilaahay xusin subxaanahu wa tacaala oonad khayr ku dhawaaqin waad ka murugoonaysaa maalinta qiyaamaha waman idajaca madjacan lam yadkur illaaha fiih qofka intuu meel seexdo ama gurigiisa ama hudheel ama meel uu seexda halkaasoo lam yadkur illaaha fiih aanu ilaahay xusinna kaanat calayhi min allaahi tira ilaahay xaggiisa wuu ku khasaaraya qofka khasaaray ka noqonay haddaad caawo dhan qarraftaa sunayso ood fuufta haysa hurdo dheer ood markaa soo kacdo intaad foollaqato aad tidhaa maasha allah xalayta aad baan u seexday hurdo wanaagsan baad seexday maad seexana waad habeentay waad halaagsantay hurdo wanaagsan maad seexana waad khasaartay buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam marka hurdadaada digri ku bilow markaad sii seexanayso markaad kacdana digri ku soo gabagabe waynu arki doonaa ducada la akhriyayo marka la sii seexanayo iyo digriga la akhriyayo marka la soo tooso labaduba digri bay leeyihin marka inaad ku khasaarto majliskaad fadhiisatay iyo mafrashkii digrigaa ilaahay kaaga badbaadinaya madjicii iyo meeshii aad jiifsatay inaad ku khasaartana ilaahay wuxuu kaaga badbaadinayaa digriga naska 13aad wuxuu rasuulku tan unbuu sii akidaya calayhi salaatu wasalaam ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وحاو نبي يقول لي مركا قال مجلس فريستون إلهي حسين نبي أنا كسلين بود عليه الصلاة والسلام ولم يصلوا على نبي قال أنا كسلين وذكره كم ذي يصلوا لكن سيجارة بالرسول على مدي عليه الصلاة والسلام ضد كاسين ميل فريستين إلهي إنما يحسين نبي أنا كم يصلين ما لنتقي مرجع يكون قريس وترى خسارة يكون طاي خسارة حتى إلهي الدورة وعذاب الدورة هدو الدورة وعفي لكن كل يبي يكون خسارة ركو إلهي بويا لاي يجو وحبت لما يدقنين فضل جد ذكر جاي نكشرنا waxau tilmaamayaa naska ama daliilka 14aad nabigu calayhi salaatu wasalaam majliskii waa majaalis fadhigii la dadku aad iyo jeer fadhigay ku halaagsamaanay in fara badanna ay ku khasaaraan bal haddana sawir kale bixinaya dhinac kale kaga soo wareeg majliska iyo fadhiga iyo fagaarayaasha aan ilaahay lagu xusaynin bal hadeeg وعن رسولك صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه ما تشران قلا انت ميل فريستين يقول إلهي حسين ككعية إلا كانوا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة وحي ككعيان يضم ما شاسي أي أريس بختي الضمير كسيدو أراكله كلو ميو كسي وربدايه بختياده كله بختيغا دمير يوم marka horaaba la isku caay jirayba isagoo baktiyayna hadalkiisa badaada urtiisa dameer baktiyay urta uu leeyahay fadhiga iyo majliska inta la fariistay aan ilaahay ba la xusin subhanahu wa ta'ala imisa meel soo uraya urtooda ay si aynaan aad u dareemaynin urtaasoo maskaxda dilayso kharaabinaysa haddaba meeshani meel uraysa iyo meel udgoonka ay tahay marka aad fariisanayso majliska iska fiiri majliska hadii lagu hayo cilmi hadii lagu hayo cibaado hadii lagu hayo i'tikaaf hadii lagu hayo waana wanaagsan waa meel la mahadinayo hadii laakiin intaaba uu ka maran ama dad lagu xamarayo ama ummad lagu xaqirayo ama ummad lagu xadgudbayo majliskaas waxa uu noqday mid u uraya sida dameer bakhtiyo oo kale marka maskaxdu waxyaabaha ay la dhimanayso waa saas weeyo qofna meesha uu fadhiyo ayaa udgoon uga soo baxaya qofna urtana uga soo baxaysa maskaxdii marka mid nool iyo mid dhimatay kala noqonaysa maskaxdii jeer urxuun ay ku baxayso iyo mid udgoon uu ka baxaya way kala duwan intaasi oo daliila waxay ka warameen dhikrigu fadliga uu leeyahay marka waxaynu soo gudbi lahayn 230 adkaarta kamida ayaa uu sheekhu halkan khayr Allah siiyo ku soo ururiyay ama aan ilaahnay dhowr iyo 6
أذكارتاس فرها بدن كيو الرئي وحو النقضي أذكار الاستيقاظ من النوم مركو قفكو هذه يتشير هردادة ككعيو ذكري قانو آخرية مركا عبادة أو كعيس كدب ناس شقات تقيس بلغ أو الرئيات كعيس هو ذكري الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور إلهي باتكم هذا ناس الحمد لله إلهي بأمهر الذي أحيانا بعدما أماتنا إلهي إن النولي إنتي وندلي كد وإليه النشور آخرنا يسقى الله صكعي مركا وحا كم وقنية الدعاء وحا كم وقنية وقهرين با إن القرتي أركوين إلهي قعنتي سكتره إلهي با كن نولي إسقانا كدلي إسقانا كسيحيي إسقانا كسوتوسيي تاسوا مد ماشي كتره قفكو مركو كل واقعي دعاء وقري مركا لبادا وقري waxa weeye hurdadanaad seexatay iyo soo toosidani waxay ku xusuusinayaan dhimashada aakhira iyo soo bixitaanka dambe wa ilayhi nushuur baa muujinaysa aakhirana isagu ba xaqiisa loo soo kaakacay marka wa ilayhi nushuur ducadaasi ba marka kolka soo toosaad akhriyaysa way koobanta ducooyinka waxa kamid ah la akhriyay markuu qofku hurdada ka soo kaco لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي رب اغفر لي ساسا الأخرين سلام وذكر قام عنيس التوحيد كي ويان أدونك وقرأ إلهي سبحانه وتعالى وتصبيح لي وحمد لي وأذيك أقول لا حول ولا قوة إلا بالله أودي حيلتنا ملهي إلهي يوم كاشريا حرفدي حيلت بدنا ملهي إلهي يوم كاشريا سبحانه وتعالى اللي هي ويناي أود بدنا إلهي ويداف رب اغفر لي وابد ساحتي أول صوت وصي أنت أدهر الدي دي تلو دم بميات قش أنت أدهر الدي دم بميات قش هاي أود قشايو هدانا دي إلهي يقوم هاد نقين هرددا دوا دمبي وشكر جيبات كتك سدا درادد ايات إلهي سبحانه وتعالى دم بدافين ويدي سنين الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكري إلهي بقى مهد هذاك أدون كمير كقبي وناكسني مهد إلهي بمر والباب بدينيا مهد إلهي بآدم بدينيا الحمد لله الكور ربا قفتك السيحان واي تدك السيحان واي وكله بالكور ربا دور عشو كوالنا يا قفك هدوه هردada seexan waayo hurdadu ay ka tagto ayaama yar kadib isbedel baa ku dhacay maskaxdii isbedel baa ku dhacay noloshuna wax macnaaba u sameyn maysaba marka nolosha nasashada wanaagsan Ilaahay uu ku siiyay iyo hurdada macaan maskaxdii iyo xubnihii iyo jirkii uu ku nastay ayaynu Ilaahay ugu mahadnaqaynaa subhanahu wa ta'ala Ilaahay baa mahad alladhi aafani fi jasad Ilaahay jirkayga ay caafimaadii dadka qaar kood baa soo toosa iyagoona caafimaad qabin ee cuduru ku dhacay ama faarijba uu ku dhacay ayay soo kacaa markaas uu qalad fahmaayo yiraahdaa mala hadaad soo jeedi lahayd waxaan kugu ma dhaceen Ilaahay baa mahadle isoo toosiye aniga caafimaad qab warada calaya ruuxdayda inay igu soo celin dadka qaar kood baa seexdo sidaaba ku tagaba oo adduunyada kaga amba baxaba oo sida loo leeyahay hebelow toos ama quraacda reerkiisu ay ugu diyaarinayaan la yiraahdaa un soo qaada meydkiisa iyo jinaasadiisa uu dhintay marka in ruuxda Ilaahay uu kugu soo celiyay waa fursad ogow jaanis baa mar labaad lagu siiyay ilaa hadduu ruuxda kaaba qaadi lahaaba jaaniskii maad hesheen aad ku faa'iideysan lahayd aad cibaado ku qabsan lahayd waxaanu ii fasaxay wa adina li bidikri inaan isaga xuso oo aan dikrigiisa badiyana ilaahaasi ii saabaxay idan waa macnaa wuxuu ku ogolaaday inaad dikrigii halkii ka sii wado oo aad sii faa'iideysato ayuu Ilaahay ku ogolaaday subhanahu wa ta'ala nolosha waa inaynu u fahamnaa inay tahay fursad Ilaahay oo addoomaha hadaynu nahay nasiye subhanahu wa ta'ala ducada labaad ama dikriga labaad waxa weeye ducaa lubsi thaw marka had iyo jeer qofku oo marada xidhanayo waanu ducadan u akhriyay bal adeega waa toostay maxaad qabanaysaa
dee qofkii waa kan uu isdiyaarinayaa sidii uu ama dibadda ugu bixi lahaa dee dharkiisii buu xidhanaya dharka xidhash waa tallaabadii kale aad qaadaysa ayaa iyadiina dhar xidhashadiina dikrigana yeelato الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة قفكوا آخرية تعالى وأنا حفظها لكن إن معني سجرنيس هيا كوسي معانينيس إلهي ما مهضل ويتنا إلهي أياكم مهضل الذي كساني هذا الثوب إله درك إسي ودركي عاد حدنيسي مركا جهرب عاد حدنا إذا حلي بحس إله مرضني هو يقولنا أرساقي مرضا لا أرساقت عنا ذا قرى ما هي من غير حول مني ولا قوة من غير حول مني حالد أنا الهين يقوى أنا الهين حالد يقوى حرفت يحالد مدنا أنا يقول الهين إلهي يقول أرساقي مرضا نسي والكور هددك قحونتيغا درلانتا ku dhacdo ee waxay gashadaan bawaay cawradoodii banaanta bal hada taa ka fik ama guri ay galaan waay ama dhar ay xidhaan dibka haysta ama qabowga waxa qofku ka xidho ama kulaylka wax uu ka xidho qofka had iyo jeer waayay baa nicmadan aad u sii dareen karaya marka ha ilaawina qolkaad subaxii dharka xidhanayso ama maalintii dharka aad dhigatay xidhanayso dib u gashanayso iyadana dikriga iyo ducada saajira ilaahay baana loogu mahadnaqayaa wixii oo dhami waa wax ilaahay ka yimido mahadnaqiisi way tan waxa weey ducaa lubsi thawb aljadid marada cusub marka uu qofku xidhanayo markii hore maradii caadiga ahayd haysatay ahayd tanina waa mara cusub baad liibaad gashay ama hadiyad baa lagu soo diray horumar xagga dharka abaad kororsato maxaa jira talo maxaad markaa oranaysa iyadana waa اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له كل واقع الدعاء واسلاوي اللهم لك الحمد يا الله إله وضع محضه أنت كسوتني أدائي هويي ودركن إسيي أسألك وحنك ويدي سنة من خيره دركن خير كيس وخير ما صنع له يوحي لو سمي خير كيس وأعوذ بك وحن كان مجنجل يا من شره شيء قال الحين الشر كيس وشر ما صنع له يوحي لو سمي شر كيس شيء قال ها وحلو سمي مر خير وهو مركا الصراط عورده يينا إلهي يقول عباديسته aad markaad u xidhanayso idna ilaahayna ugu mahadnaqayso marka isaguna khayr buu leeyahay wixii loo sameeyay khayr ahaana wadeesh laakiin shaygan isaga ah waxa uu yeelan karaa shar buu yeelan karaa markaad meel xaaraana ka soo shaqayso markaad si xaaraana u xidhato marka aad hadaf iyo qasad xaaraana leedahay xaaraan buu midalan meel xaaraana waad ka soo shaqayso de shar buu leeyahay sharkii loo sameeyayna waad ku xambaaratay si xaaraana buu qofkii u xidhayo aan sharcigu ogolayn dee wuu isku dhaji ama dee dhinacyu qaawi ilaa asturaadii miyirka qabtay buu ka tegay qasad xaaraana buu ku xidhayo dee istusnimo iyo iskibir iyo isqaalqaad iyo arkaa iyo maqlaay weeye hadafkiisu marka uu qofkani dharka xidhanayo taasina waa sharkii dharkan ama shaygan aad xidhanaysay labiskan sharkiisii wey marka labadaas siyood ayaa dharkii iyo shaygii aad xidhanaysay ka soo bixi kara cusbaaya kugu soo kordhay marka ha eegin uu lambarkiisa iyo balada midabkiisa iyo dhalaalkiisa iyo gajeegareeyo musaaxibadaada oranayeen ducada haylaawi ducada ka bilo si uu kugu barakoobo haddii kale waaba laga yaabaa inuu adoonku balaayo ka qaadabo الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا مركله وحيدنا الأخرية إنه قفك إلى أهضاء تبلي ويخلف الله تعالى مرضا لما يسوء بدل خير قضانا الله كسي والدعاء مستقبل كلاحجين سيدو النبي كنت عليه الصلاة والسلام معناه وحويان وادبالي سنة يسار لما يسوء ذلك قال كيف إلا سنة كوشري كري سنة ذهب الله كداي ويخلف الله تعالى إلى هين خلف يبدل خير قضاء
الله كسي هدي أد مركا كبحضا أو كارد مادنا مد في عنا الله كوجو بدله هدي أد ويدو لقى بحضا أما لقى قاتنا بدل خير قبا الله كسي سدا سنا يدنا ودعاء كلا بخريس البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام البس جديدا شيء صبح لا وعش حميدا هذه قال لكم هذيين النارو ومت شهيدا هذه قال شهيدا درجة قارينا الدنيا ذكرتك إلا شهيدكم قابت الله إسكه لا عدو قال قولت قال لما يقول معه شهادة ويد بدين سيدو النبي قبلن قاضي وكي أبوهي عليه الصلاة والسلام تضبطن بها الشهادة النقضة مركا أديقو أن دقالك قلين والشهادة دي هل كأن هلين بعد مالك للشهادة كيلي كرتا مركا صدح لنا الرماد با والدعو يدنا مركا قفكينا أي تهيئن أو أخريه البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا لو قدوا عينك رقفك waxaa kaloo tashanaad ama dhikriga shanaad aynu akhriyayna ma yaqulu idha wada'a thawba wa dhikriga uu akhriyayo marka uu marada dhiganayo bismillah ma yarade miyaad yaraysat bismillah ayaad leedahay kolka iyadana rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay satru ma bayna a'yun al-jinn wa awrati bani adam idha wada'atukum thawba an yaqula bismillah qofka bani aadamka jirkiisa waxa ka ilaaliya isha shaytaanka iyo suntiisa iyo irbadiisa bisinka ka ilaaliya oo marka darka dhigato qaawanaan u baxdo waxa ishiisa iyo cawridiisa iyo tufitaankiisa iyo waswaaskiisa baad ka gashanaysaa bismillah markaad galayso xamaamka bismillah waa deyn dadku la fududi qaar badan way saashanayaan qaar badan way iska ilaawaan laakiin rasuulku sallallahu alayhi wasallam saasu ina baraya shaydaankii liitay aan naga dhamaanaynin ee wax tufaya wax afuufayay ee wax ilaynayay bismillah waad mar dhiganaysa adoo buuqayo oo qaylinayo oo golaaftamaya arrimaana sameeyna horta xusuusa markiiba ee wuxuuna u baahan tahay dhowr habeen aynu celcelinno dhowr habeen markaad celceliso marka tan waxa oranaysaa maxaa ka dhiman talo maxaa ka dhiman qofka oranaya ducaa dukhul al-khala bal noloshii oo dhan ba ihtiwaa ku sameeyay sharcigeen oo lagu koobay macnaha oo meel la waxba lagaaga tagin ba laguma daynin xorriyadaada waa lagu jeeyay si aad u badbaadi karto waa marka uu qofkii xamaamka galay muxuu leeyahay bismillaah allahumma inni a'uudu bika min al-khubuthi wal khaba'ith بسم الله إلهي بسنكيسا ديرتي اللهم يا الله إني أعوذ بك وحن كامغان قليا من الخبث شيطان كاللب والخبائث إيه الشيطان كالدق يعني إلهي كامغان قليا إلهي الشيطان كاللب يكون الدق إلهي يقبت باد قيبي سكال الدول إلا هو والله ما ضعصون كله وامد لبي يمد الدق haddii tudhadiga igu soo fakan lahayd ilaahay uga jooji kullaba haddii oo qoor igu soo fakan lahaana ilaahay iga jooji labadaba ilaahay wad ka maangashay subhanahu wa ta'ala marka waxa laga faa'iideysanayaa halkan anna shaytaana yaskunu al-khabitha min al-amkinati wal-ashkhas shaytaanku wuxuu dagaa dalka xun iyo dadka xunna uu dhex degay dalka xunna uu degay dalka halka xunna uu degay هذا سحر الله حتى قف حن أكفر يستاء من الله صاحبت شياطين باكسو دريريس تنزل على كل أفاك أثيم إلى هاي وحول الشياطين توحي كسو دكتا بين علياشا بين أبورة كبضان أي كسو دكا الشياطين وكوا سحر الله مركا قف بين على بين أبورة بضان الشر وذينا حتى أكفر يستاء الشيطان كسو دريريس ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا إلهي با كسوك عيني يا باب البيت كسمين يا شياطين تيومرك إلهي ديدين بو الشياطين كسلذي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين إلهي ذكر جيس قفك كتغا
anna shaydaan baan u diyaariyayo isagaa kulli faaqan marka shayaatiinu taskun waxay degaysaa alkhabiitha min alashkhaas dadka xunxun bay dhex deganta walkhabiitha min alamkina goobaha xunxunna way deganta shayaatiin sida had iyo jeer kudaafadaha iyo xamaamkan iyo meelahan qurunku uu yaallo halkaasay degayaan marka meesha qurunkee kudaafada lagu xaajo gudanaya marka uu qofku galaya wuxuu leeyahay ducadan u akhriyay ilaahay buu ka dayranaya subxaanahu wa tacaala waxba ma yeelayaan biidin illaahi tacaala waxaynu aragnay dadka qaarkooda intay xamaamka galeen iyagoo suuxsan laga soo qaaday ama iyaga oo jidhka dhaawac uu gaadhay oo markii bannaanka u soo baxeen qur-aanka lagu akhriyeyna ilaahay ka dulqaaday subxaanahu wa tacaala qofkaasi digrigii baanu iyo gaashaankii baanu samaysanin shayaadiinta noocana ilaahay laga magan galaya uu ka samaysan lahaa ducaa ulkhuruuji min alkhalaa qofkii marka uu ka soo baxaya xamaamkii kolkii hore digri buu ku galay markii uu soo baxayna waxa uu akhriyey waa digri ducaa baa lagu fasiray dee digri iyo ducaa labadiiba waa isla digri weyn ducaa uthanaa baa iyaduna jirto ducaa ulmasala ducada laba qaybood mid waa ducaa ulmasala baryo ilaahay la baryayo wey midna waa ducaa uthanaa duca magaceeda loo yaqaano ammaan ilaahay la ammaanayo wey sidaa daraaddeed adkaarta qaarkood oo su-aaliba aanay ku jirin haddii mararka qaarkood lagu sheego ducaa waa ducaa uthanaa laakiin teed su-aal baaba ku jirta qofkii waxa uu markuu ka soo baxo waxa uu leeyahay maxay qufraanak miyay badanta waa kooban qufraanak intaasiba ansaxday inta riwaayadaha kale ay sheegayaan waa daciif alxamdu lilaahi aladii adhaba canii lada wacaafaanii camaa baqiya ilaahay baa mahad leh wixii idhibaya saxare iyo kaadi ahaa iga badbaadiyey inta calooshayda ku hadhay iyo gudahaygana igu caafimaadiyey way jirtaa laakiin sanadka xagga xadiidkaas waa daciif ducadaa sheegaya inta ansaxdee saxiixa waa inta qofkii waxaa leeyahay qufraanak adlubu qufraanak wey waxa weeyaan waa mafcuul uu go-an yahay ficilkiisa adlubu qufraanaka yaa allah ilaahayow dembi dhaafkaagaan doonaya oo talow maxaa ereygaa loo doorto waxaa loo dooranayaa qofkii waxaan dhibayey ee ama uu la roorayey ee ilaahay uu ka reebay waxa uu ahaa dhib weyn oon cid kale ka dulqaadeen buu ahaa marka haddaba sidaa ilaahay uu kaaga saaray dhibta yar arrintaa shukri bay mudantay shukrigaana lama iman kartid gaf baa halkaa ka jira ilaahay gafkaa iga dhaaf wey ilaahayow mahadnaqii aada mudnayd mushkiladan aad iga xallisay marka la eego kuma mahadnaqi kare ilaahay iga dhaaf qufraanaka xikmadda lagu doortay ereygaa meeshaa wey adikru qabla alwuduu iyadana kolka uu qofkii intaanu weysaysanin bismi illaah baa iyadana sunnaa bismi illaah ilaa culimada qaarkood ay tilmaameen inuu waajibba yahay bisinkuyo intaanu qofkii weysada bilaabin ayaa waxa uu leeyahay bismi illaah bisinkaa ka tegi adikru bacda alfiraaqi min alwuduu bacda alfaraaqi min alwuduu marka uu qofkii ka baxo weysadii ee uu dhammaystiro ذكر وآخره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بض واردك يدك واوين بحتى هذه الله لقيمه الله قول عليه حفظه عرورتها حفظه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتوحيد أنت سوقفك كل واقع أذكارك waad kutubaha ku arki laakiin sheekhu wuxuu soo qaadanaya inaha sanadkooda waan saxaya oo sugmay Allahumma ij'alni min at-tawabin waj'alni min al-mutatahhirin Ilaahay waxaad iga dhigtaa kuwa tawbada badan min at-tawabin in badan ku toobad keena waj'alni min al-mutatahhirin kuwa isnadiifiya Ilaahay iga dhig labadaas la isku lifaaqay inna Allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin ilaahay wuxuu aayada ku tilmaamay inuu ilaahay jecel yahay kuwa toobada badan ee ilaahay u toobad keena isla markaana isnadiifiya labadii baa markaa aynu ilaahay barayna ilaahay kuwa toobad keena in badanna iga dhig kuwa isnadiifiya jirkooda nadiifiyana ilaahay iga dhig marka midka meesha yaala waxa weeye qofku kolka uu hadiya jeer ducadan akhriyo kolka uu dhikrigan akhriyo kolka uu weysaysto ilaahay baatinkiina uu ka nadiifinaya oo toobadii iyo dhikrigu ku nadiifinaya daahirkiina wuxuu ku nadiifinaya iyo jirkiisii weysadii marka
baatinkii iyo daahirkii labadiiba qofkii daahir buu noqday sidaa daraaddeed baa towbadda iyo dahaarada la isu raaciyey oo xagga sare iyo xagga hooseba qofkii nadiif buu ka noqonaya waysada kadib adkaarta aynu akhriyayno waxa ka mid ah subxaanaka allaahumma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa ant astaghfiruka wa atuubu ilayk waa towxiid subxaanaka allaahumma tanziihan laka yaa allah ilaahay xumaan oo dhan baad ka hufantood ka fogta wabixamdika mahaddaadaan ku daraya ilaahay tasbiixdaada iyo mahaddaada ayaan badinaya ashhadu an laa ilaaha ila allah ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro adiga un mooyaane ilaa ant astaghfiruka wa atuubu ilayk أستغفرك دم بداف بانك ويدسنيا وأتوب إليك إله أذان كون نقريا الذكر عند الخروج من المنزل كلك صباح دي سيب حيس مراد كاغ قبسنيس يا شقت تجيس هل أنت برسيد اللي قوي عليه قفك ذكر كان أردنا أخريا يك إسكت دجم لا إسك صعنيا ده الله بلاسي إسكو دفاع يا إسكو قاشان تونا معه إسكو قاشان معه قفنا gaashaanba ma laha wixii dhaqaaqaaba way jirayaan qofna qof taangi ku dhex jiro kale uu ka dhigay deemaka aad dagaalamaysa taangi ku dhex jirto iyo haddii aad tahay qof bannaan taagan isku mid ma yihiin marka kaaraha la dhex galaya shaydaanka laga dhex galaya waa adkaarta الدعاء الذكر عند الخروج من المنزل ومركه وقفك غريغيسا كبخاي صباح اما صلاه الصباح وسيبا اما شقتك مرون محول لي قفك مركانا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلهي بسنكي سيبان كبحي إلهي بان تلاسارت حيال ذي قوتون مله إلهي وانكاشد مويا إلهي بو مغنقلي سبحانه وتعالى إساقو إركضي أو كوروري أو كلي اسم بدين قفكاس كان إلهي وإلالنا دعاء الله بعد وحوي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي انتاسوا إلهي بريا سبحانه وتعالى اللهم إني أعوذ بك إله وحان كان مغنقليا أن أضل إن الله أو أضل أم الله إلوميه أو أزل أم أنسب بالرحضة أو أزل أم الله يسم بالرحيه أو أظلم أم وحد ظلميه أو أظلم أم الله يظلميه أو أجهل أم أنه جهل السمايه أو يجهل علي أم الله يقول جهل السمايه جاهل ولبن نعنعدي سيلا صوتهم انت هذا إله وكان ما قال وحو البا شرعي الشيطان وذي جن إنسي حمان تودرنا إلهي وقت جوج إلهي وشر كيغا أنا وأنا دتك جالسين إلهي ودتك شر كودا مخلوق الشركي سنة إلهي وقت جوج سداسو غوريغي كغا سو بخاي عدي كسو هر بخدابا هيبد بو قفكن إلهي ساريا إلا وا غاشامي إلهي با وقبلي سبحانه وتعالى الذكر عند دخول المنزل قفك سداسو كو سو بخاي ساسا إلهي كو بدبادي و سو نقدي و سو قدا دونتي اما habeenkii buu soo casho doonto gurigiisii u imanaya fikri baa jira markaana الذكر عند دخول المنزل ومركه guriga galayso بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا ثم ليسلم على أهله سيدا سوليه بسم الله ولجنا بسنك إلهي أنا كوكالله وحان كسو قال يا قولي يسكا قال ما يوني إلهي بسنكي سيا مقعيسي أنا وكاشنايا وبسم الله خرجنا إلهي بسنكي سيا كبحيا حتى بحينا وعلى الله توكلنا وعلى الله ربنا توكلنا إلهي يجب أن نتلسارا انت صورنا مركو انت إلى أذن ثم ليسلم على أهله هير كانها السلام ذكر قاسا مركي الباب كلا فريه مركي أتقراعي سيئ مركا ساو صوق الشيء الرئي الله فره هيا الدعاء آخريس عندك وقوه الرئيسية كافر طي أما مركا تقولي الشهادات مفتاحة يستي أدوه عندك وقوه الرئيسية كسوقها بالشينا والسلاميسة ديان عديبت شوقنا ونوعي البركة السيحنة يا أتهينا هذا بيس السلام بقى وسلموا على أنفسكم نفتينا السلام بالقرآن كله نفتينا السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا سعى مرتيو واي مركز تانها إلاوي وأرما أين أوران كرنا نلاشي نوي كوك روح بدنانا لكن حصوصتي بقى إسكير بقى حصوصتي بقى إسكير
ducaa dhihaabi ila almasjid marka haddana hawlaagii markaad guriga ka qabsatay waa la adaamay halkan un dee iska fadhfadhii mayside markaana masjidkii baad u baxday kolkii adaankii u dhacay ducadana iyadina jirta اللهم اجعل في قبري نورا وفي لساني نورا إله قبري جايga نور وفي عفوا اللهم اجعل في قلبي نورا إله قلبي جايga نوريا قلبي جايga إله إيه نور إلى نور بين وضع بهنا وفي لساني نورا إله عرب جايga إيه نور وفي سمعي نورا وفي بصري نورا حديث نور بدل كشكينه إله مقل جايga أرى جايga إيه نور ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا حقيقة سرية حقيقة هوسنة إلهي وإن نور وعن يمين نورا وعن شمال نورا إلهي مدك تيدنا النورية بدح تيدنا النور ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا حقيقة هرية حقيقة تنبب إلهي يفتيني واجعل في نفسي نورا إلهي يو نفتيدا نوري سي وأعظم لي نورا إلهي يو نور كأي بربور أو أي بضي وعظم لي نورا إلهي ونورك إلهي وإيه نور ونور وين يسي واجعل لي نورا ولا وعل علني إلهي ونور إياه وإي دياري واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا إلهي أعصاب تيدا ترى ما ياشيدا سيدا هيدا إلهي يجنا افتيني وفي لحمي نورا إلهي هيلي بكيجا نور إلهي نور قدر وفي دمي نورا إلهي وديجا نور وفي شعري نورا تمهيجا إله النور وفي بشري نورا شركيجا يا مقار كيجا إله النور والكور دعاء سحد دعاء سنة يا رسول صلى الله عليه وسلم كتاب معناه يدوح وي شركيني يا الروح ديني يا نلاشيني يا وحي نقول حيرنا نور بينو بعنا وان نلال يا النور لا صوت الصعدة مركها توقف كي نلال يا النور وايو ودنتو غيريوده وي اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي يدنا واجرتا روايانك قاركود الهي قبرغيغا انه الهي لفهيغنا نور وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور روايانك قاركود انت سيكر اله نوريكم اله نوريكم اله نوريكم اله قبرك انه اله النور اسسارنسي اله وحول نور على نور سوره النور مركو ورمي وحول نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ونور اسسارن ايمانك نور كيس وعد دوننا الهي وهبيو اوصيه دعاء دخول المسجد مركو قفكي غليا مسجدك والدعاء كلويه aynu akhriyayno markii hore waa tagidiiday saajkii baad ku sii socotaa laga aadaamay waa tagaysaa ama cilmigaad ka soo qaadanaysaa marka hadaba aad galaysa masjidka ee kabta iska bixiso lugta midigna aad galinayso waxaad leedahay a'uudu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytan ar-rajim wad reebtayba gantaal baad ku ridayo meelo maray la arki maayo halkaas uu kaaga xad a'uudu billahi al-azim ilaahay baa maan galay weynaa wa biwajhi al-karim wajhigii uu si wanaagsanaadan maan galay wa sultanihi al-qadim ya awoodiisii horeysay min ash-shaytan ar-rajim shaytaankii la nacdalay baan ka maan galay ilaahay oo shaytaanka la nacdaleed fogeysay adaan ka magan galay ilaahay iga reeb halkaas uu ku haray haddii kale adoo isxambaara baad soo galaysa iyadoo aad xambaarsan tahay oo salaadi meeday oo ducadii meeday oo waswaas waakee markaas u dabeetana rifan iyo lisan buu kugu badinaya bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah allahuma iftax lii abwaaba raxmatik bismillaah bisinkii baan ku galay wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah nebigii buu ku salliyey oo salli iyo salaam labadaba rasuulka iskale sala allahu calayhi wasalam اللهم افتح لي أبواب رحمتك إلهي وإيفر البابدة نحريستا مسجدك waxa loo tagaya naxariis ilaahay baa laga hirqanaya nolol baa laga qaadanaya nuur baa laga qaadanaya ilaahay naxariista iyo nuurka masjidka laga helaya ilaahay iifur saasa marka qofkii uu ku ducaysanaya ducaa al-khuruuj min al-masjid
masjidkii markii aad cibaadadaadii ku dhammaysateed doonaysa inaad hawlahaagii qabsato ila ilaahay wuxuu fa idaa qudiyat as-salaatu fantashiruu fil ardi wabtaquu min fadli illaah kolka cibaadadii salaadii la dhameeyo arsaaqad doontoo dhulka ku faafa baa ilaahay dhulku inoogu daadiyey markaana ducadan aad akhriyaysaa bismillaah والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم حين نقول يا والله نقول صلي ذين كارك كنا على شغال كلام مراني نجاهي بس إن كي مركز أخذين النبي قبل كصلي عليه الصلاة والسلام أذكار ذكرك وقال السلام وكتير صلى الرسول صلى الله عليه وسلم أي نواب البدين الدعاء رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك من فضلك إلهي وفضلك أجان كويديستي فضلك على قعنتك وهي إلى إلهي وحول كلك عبادة إلا لما فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلهي فضلك سرات سنة حتى إلهي وفضلك أعطي الرات سنة دي أدان كويدي سنة مركا مهردي أطفرتي شقدي قعنت صارتي دي أدد كيبا ويو معالانيس ميا لغا كريابا إلا أني صوصو فايستي باطاية وصوصو فايست marka dadkii way ku soo ururayaan wixii aad ka heshay uu barakaysan yahay qalbigii baa degaya ummadii baa ilaahay qabuul ku gelinaya sumcadda aad doonayso adoon xayeysiis ba alaabtii u sameeynin sawtan xayeysiis ilaahay bay haysataa marka ilaahay waxaad leedahay allahumma asimni min ash-shaytaan ar-rajiim ilaahay shaytaanka la nacdalay ilaahay iga ilaali sidaas marka uu kaaga haraya shaytaankii intaasoo waxaad arkaysaa noloshii qofka bal noloshaadii tiri qalin iyo buug intaad qaadato noloshaadu wareega ay marayso bal tiri sidaas ay markaa u sii soconaysaa halkaasaynu ku soo koobi doonaa insha Allah subhanahu wa ta'ala